السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeenimo. Waxaanu ku soo qaadanaynaa dhowr qodob oo muhiim ah. Xamaas oo ka hadal siisay askari Israa'iili ah baaqna u diray Israa'iil shacabka xukuumadda iyo Donald Trump. askariga oo Gaza maxaabiista lagu haysta wixii uu sheegay barnaamijkan ku faahfaahin doonaa. isla markii askariga uu hadlay hay-ad ay leeyihiin caa'ilaadka ama qoysaska dadka lagu haysto Gaza ayaa ku baaqay barito mudaharaad weyn dadka Israa'iil inay kala soo qayb galaan kaasoo ka dhici doona meelo kala duwan oo ka tirsan gudaha Israa'iil. haddaba tafaasiil ku saabsan arrinka waan idin hayaa. waxaa sidoo kale barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha islaamka ayaa Jidda ku shiraya arrinta Falastiin ayay ka hadlayaan. haddaba waa arki doonaa iyaguna waxay soo saaraan. hore waxaynu ula soconnay madaxdii jaamacadda carabta wixii ay soo saareen. haddaba shirkaas oo hadda socda intaan ku jirno hadday warar soo kordhaan waan idin la socodsiin doonaa. waxaa sidoo kale barnaamijkan kusoo gudbin doonaa qaybaha ugu dambeeya iyadoo Israa'iil meel walba ay jidgooya dhigtay dadkii masjidka barakaysan ee al-aqsa ay cadaadisay markay aragtay hirka dadka socda waa la hor istaagi waayey. waxaa laga baqay fidno iyo dhibaato weyn inay halkaa ka dilaacdo. 9,000 oo qof ayaa ku dukatay maanta salaadii jimcaha masjidka barakaysan ee al-aqsa. haddaba sida ay wax u socdaan dhammaan warbixinadaas barnaamijka ayaan ku faahfaahin doonaa. inta aan ku jirno wixii warar ay soo kordhana waan idinla socodsiin. shirka ka soconaya magaalada Jidda u furmay wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha islaamka. haddaba shirkan waxaa lagu tilmaamay inuu yahay shir aan caadi ahayn oo degdeg ah oo wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha islaamku ay halkaa isku ballansadeen. haddaba waxa ay ka hadli doonaan arrimaha soo kordhay ee Falastiin, xaaladdu halka ay marayso, go'doominta cusub ee Israa'iil ay saartay reer Gaza, raashinkii oo laga joojiyey, go'aamadii ka soo baxay shirkii jaamacadda carabta. waxaasoo dhan iyagoo markaa dowladihii islaamka ah ilaa 50 dowladood in ku dhow oo dowladaha islaamka ururka iskaashiga dowladaha islaamka la yiraahdaa ayaa waxaa iyaguna laga filayaa inay war soo saaraan. haddaba maxaa laga filan karaa? dadka wax falanqaynaya waxay leeyihiin waa aragnay jaamacatul carab warkii ay soo saartay, maxay iyaguna samayn doonaan? dadku waxay leeyihiin waxa ugu badan ee laga filayo waa inay ayidaan shirkii jaamacadda carabta wixii ka soo baxay, qorshihii Masar ay waday oo jaamacadda carabta ay ku raaceen in markaa halkaa haddana wasiirka arrimaha dibadda ee Masar uu ka akhrin doono, in markaa la weydiisan doono dowladaha islaamka iyaguna inay qorshaha taageeraan. qorshahaas oo ah inaan la haajirinin dadka reer Gaza oo meeshooda ay joogaan, in maaragtay dadka gargaarka loo fasaxo, xabad joojintii la sii wado, in isbedelka lagu sameeyo maamulka deegaanka, in dib u dhis la sameeyo, lacago in la sameeyo, la aruuriyo, marka cid walba inay ka qayb qaadato dib u dhiska Gaza. haddaba marka waxay leeyihiin qorshaha dib u dhiska Gaza oo lacag lagu aruurinayo oo ay Masar wado 53 bilyan, maxaa la dhisayaa hadda ayay Israa'iil u tafaxaydanaysaa? waa burburinaynaa leeda, waa jijibinaynaa, waa dagaalamaynaa. maalin walba waxay dishaa dad Gaza gudihiisa ku jira. maanta ugu dambeysay waxaa la sheegay inay 2 qof dhinteen oo Israa'iiliyiintu ay ku dileen Gaza markii ay sheegeen inay miinas meel gelinayeen. marka waa tooganay dheen halkaas ku dilin. marka maalin walba marka dhacdooyinku iska soo daba laabtaan. marka waa la arki doonaa kullay wixii ka soo baxa oo soo kordha. shirka hadda ayuu socdaa, markaas ayaanu arki doonaa barnaamijyada dambe. haddii warar cusub ay ka soo kordhaan waan idinla socodsiin doonaa. dhanka kale waxaa la sheegayaa xaaladda Gaza inay maaragtay weli sidii tahay, dadkii cuno la-aan ay ku jiraan oo meel walba laga xiray, gargaarkii Israa'iil ay diidan tahay oo in uu galo Gaza ay diidan tahay. dhanka kale abaanduulaha cusub Zamir ninka la yiraahdo ee ciidanka Israa'iil wuxuu xilkii ka qaaday afhayeenkii ciidanka Daniel Hagari. waa laga qaaday xilkii kadib markii dhowr jeer ay isqabteen xafiiska ra'iisul wasaaraha Netanyahu iyo wasiirka gaashaandhigga ayaa hadda waxaa la leeyahay
xilka qaadisa lagu sameeyey Daniel Hagari ninkii la dhaayay afayeenka ahaa ee halkan loo soo bixi jiray isaga Abu Ubayda dagaalka bilowgiisii ay halkan ku tirsan jireen marka ninkan cusub waxa leeyahay afayeenkii waa bedelay saraakiishii waa bedelay hab cusub aan ku galayaa taabtika cusub aan ku galayaa qaab cusub maaratay aan Gaza midaan ku dhigo waa la yaabaa u leeyahay qoladan waxay leeyihiin kii hore naga baxsaday haddaan naga baxsato adigana nasiib aad leedahay wala soo anjaba wax la isu reebana male haddaba qodobka halkaas aan ku dhaafeynaa waxaa jira nimankii Xamaas ahaa waxay ka hadal siiyeen askari ay haystaan oo dadkii ay haysteen kamida fariin u diraya isoo dharka askarta labisan ay soo saareen markaas wuxuu leeyahay wuxuu la hadlayaa Netanyahu wuxuu leeyahay halka kaliya ee wax lagu furdaamin karo waa in wada hadalka la sii wadaa isdhaafsiga maxaabiista marxaladda labaad in loo gudbaa dhanka kale wuxuu la hadlayaa shacabka wuxuu leeyahay isu soo bax sameeya sidii naloo badbaadin lahaa loogu qasbi lahaa xukuumadda inay wada hadalka iyo nabadda qaadato hanagu qasbinina in halkan aanu ku dhimano dagaal haddaa soo qaadaan halkaana ku dhimanayna wuxuu sidoo kale la hadlayaa ninka la yidhaahdo Donald Trump wuxuu leeyahay ninka kaliya ee wax u sheegi kara qolada Netanyahu iyo raggiisa waa adiga ee fadlan hawsha ka shaqeey sidii safqada ama isdhaafsiga maxaabiista heshiiska loo sii wadi lahaa wajiga labaad loogu gudbi lahaa wuxuu sidoo kale aad ula hadlay hooyadiis aabihiis walaalihiis waxaan aad ugu xiisa ayuu leeyahay inaan isla joogno sheekaysano oo aan markaa isku soo dhawaano markaa waan rajeynayaa inaan mar kale kulmi doono marka hawlahaas iyo hadalladaas markuu sii daayay aad bay dadkii maartay Israa'iiliyiinta ah ninka hadalkiisa maartay uu soo jiitay markiiba hay'adda dadka la haysto hay'ad ay leeyihiin waxa ku baaqday sabtida berita ah in la sameeyo mudaaharaad weyn oo Israa'iil ka dhacaya gaar ahaan xarunta wasaaradda gaashaandhigga waxay ka codsadeen shacabka kale ee Israa'iil inay kala qayb galaan mudaaharaadkaas oo markaa ay isu soo baxaan si dawladda cadaadis loo saaro oo la yiraahdo arrinka sidaas ayuu noqonayaa waa tahay marka qodobka isaguna halkaas ayaan kaga gudbaynaa dhanka kale masaaridu waxay leeyihiin wafdi ka socda Xamaas ayaa galabta soo gaaray magaalada Qaahira waxay leedahay Xamaas diyaaran u nahay wajiga labaad in la sii wada hadallada annaga wada hadal ma diidanin diyaarana marka masaaridu waxay leedahay Xamaas waa diyaar waxaan la hadalnay Qatar Mareykan si markaa Israa'iil looga dhaadhiciyo inay aqbasho wajiga labaad in loo gudbo marxaladii koowaad way dhamaatay marka Israa'iilna way ka leexanaysaa marxaladii labaad hadii la soo galo de waa meeshii wax lagu kala goynayay ka bax Israa'iil dhulka Gaza ka bax maaragtay xabad joojin daa'ima samay hawshaas ku jirta marka hawsha iyaduna ma rabaan hawshaas halkaas ay iyaduna maraysaa masjidka barakaysan ee Al-Aqsa culays fara badan ayaa la saaray masaajidka ciidan kumanaana ay Israa'iil geysay ilaa xalay ilaa shalay ka shaqeynaysay waataan barnaamijka saaka ku soo qaadanay xalay inta masaajidka galeen dadkii ku jira dhan banaanka u soo saaray ilaa wax i'tikaaf leeyahay ma jiraan dadkii kutubada akhrisanaya quraanka akhrisanaya inta ka soo garaaceen masaajidka soo saareen waxay yiraahdeen dad tiro kooban ayaa loo ogol yahay masaajidka inay ku tukadaan 10,000 meelahaas ay yiraahdeen meel kasta jidkooyay dhigeen dadka halka ka imaanay dalka markii dambe saakay waxa soo baxay dad ciidaas soo baxay oo masaajidka u socda marka way shireen hay'adaha amniga Israa'iiliyiinta waxay yiraahdeen dadkan hadaynu hor istaagno oo aan carqaladayno fawdada weyn bilaabanaysa marka dadkan masaajidka ku tukanayaan way laabanayaan culayska laga dhaafo baashi waa la dejiyay marka iyaga inta isku laabtay dejiyeen marka dadkii muslimiinta ay ku tukaday maanta masjid barakaysan ee Al-Aqsa tiradooda waxaa lagu sheegay qiyaastii 9,000 oo qof in ka badan 10,000 iyo meelahaas waa ilaahay ku tukanaysa 9,000 oo qof masaajidkii dibadiisii meel walba oo barxadii masaajidka soo galayay kulli salaadii jimcaha lagu oogay waxay ay salaadii jimcaha ugu horeysay bisha barakaysan ee Ramadaan salaada markay dhamaatayna waa la ducaystay waa la duceeyay Falastiin loo duceeyay
waa la duceeyey falastiinna loo duceeyey sidaasay markaa usha ku dhammaatay barnaamijkeenii caawa intaa ayaynu kusoo gabagabaynaynaa fakari aragti waxaa qabtaa noo soo qora barnaamijka la gareeya oo sheer gareeya inta aan mar kale kulmayno asxaabay nabadgelyo